kusoo dhowow barnaamijka Connected Case. barnaamijkan waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo Axmed Kiisa Farxaana. waxyaabahan ku wadaagi doono waxaa ka mid ah ganacsiyada Soomaalida ee ka hadalka u baahan, sheekooyinka saameynta leh iyo arrimaha ganacsiga istaahilay in la baahiyo. barnaamijkan waxaad kala socotaan bartaan YouTube ku leenahay iyo TV-ga caalamiga ee True Cable TV. barnaamijka waxaan ugu martaa khabiir aqoontiisa iyo aragnimadiisa wala xiriiro arrimaha ganacsiga, maamulka, la talinta iyo suuqgeynta. waxaanu kala sheekaysan doonaa sida ganacsiyada, hay'adaha maxalliga ah iyo laamaha dawladdu ay ugu baahan xarun ka shaqeeya kobcinta iyo la talinta xirfadaha lagu maamulo ganacsiyada, hay'adaha maxalliga ah iyo laamaha dawladda. ku soo dhawaad Cabdiraxmaan barnaamijka. aad mahadsantahay. adiga mudan waxaan kaaga mahad celinaynaa sidaad waqtigaaga barnaamijka aad ugu soo hortay. mar labaad Cabdiraxmaan barnaamijka ku soo dhawow. waan dhawahay. su-aasha koowaad aynu barnaamijka ku bilaabi doono waxay tahay Cabdiraxmaan waa aasaasaha xarun la talineed oo loo yaqaan Haasi. Cabdiraxmaan xaruntaas maxay qabataa? bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay baa mahadle. mar labaad waxaan kaaga mahadnaqayaa barnaamijka Connect with Case ee ugu tala gashay in fikradaha u qalma in la faafiyo. adiga mudan Cabdiraxmaan aad ku faafiso. haddaan su-aashaada markaa galo Haasi Consulting, waxaa laga yaabaa in dadku isweydiiyaan xaggay ka timi ereyga Haasi. ereyga Haasi waxaa loo soo gaabiyey Horn of Africa Strategic Initiatives oo ka dhigan arrimaha istiraatiijiyadeed ee Geeska Afrika. waxaan ugu talagalnay ganacsiga, laamaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga ah ee Geeska Afrika. Geeska Afrika markaan leeyahay waa inta Soomaalidu degto iyo wixii ay markaa la halmaala in lagu kobciyo, lagu koriyo, isla markaana aan barno fikirka istiraatiijiga. taa waxaan runtii keenaya waad ogtahay oo ganacsiyadeenu meel fog ma gaaraan. way faraan, way weynaadaan. qofkii ganacsiga lahaa markuu dhinto way dhintaan iyaguna, markuu xanuunsadana way xanuunsadaan. sababtuna waxay tahay waxaan jirin strategic thinking ama fikir istiraatiijiyadeed oo shirkadan lagu aasaasay laguna maamulayo. marka waxaanu ugu talagalnay in aan ka caawino ganacsiyadeena, hay'adaha maxalliga iyo laamaha dawladda in ay samaystaan istiraatiijiyad wanaagsan, systems wanaagsan. mani qorshe ay ku socdaan bas shirkadda wadaan. marka istiraatiijiyada aan leeyahay waa qorshe mustaqbala, waa qorshe muddo dheera. waad ku mahadsantahay inaad isaxday. qorshe muddo dheera oo 5 sano, 3 sano iyo wixii ka badana. Haasi Consulting ahaan waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah samaynta qorshayaasha istiraatiijiyadeed, waxaa ka mid ah maamulka iyo dhismihiisa, waxaa ka mid ah systemska iyo waxyaabaha organizationku nidaamyada organizationsku ay ku shaqeeyaan, hadday tahay ganacsi, hadday tahay hay'adaha maxalliga iyo hadday tahay laamo dawladeed. waxaanu ka shaqeynaa oo waxyaabaha ugu muhiimsan ka mid ah suuqgeynta. suuqgeyntu maaha alaabta iyo adeegga uun, waxyaabo fara badan baa la suuq geeyaa. barnaamijkaagana ka mid ah waxyaabaha suuqgeynta u baahan. marka suuqgeyntu iyaduna waxa weyn waanu sameynaa. waxaanu sameynaa kala tababaro iyo la talin dhinacyo fara badan. waxaanu sameynaa la talinta dhinaca mashaariicda, tusaale ahaan dadka mashaariicda qaadanaya ama mashaariicda doonaya inay maamulaan ama lala maamulo, iyagana saas oo kale haddii loo qorayo proposalada, haddii mashruucii lala maamulayo, communicationskii iyo xiriirkii, waxaasoo dhan baan sameynaa. marka shaqooyin fara badan oo noocaas waxaan sameynaa daraasaadka cilmiga, hadday tahay kuwa suuqa, hadday tahay kuwa maaragtay bulshada, iyagana waan sameynaa. marka waxyaabo fara badan oo caynkaas ayaan qabanaa walaal. shaqo kastoo la qabanayo ama wax kastoo la bilaabayo waxaynu ognahay sabab ka dambaysa. maxaa la oran karaa sababta Haasi u sameyseen? maxay tahay waxyaabaha ka dambeeya, ujeedka ka dambeeya inaad Haasi sameyseen maxay ahayd? ujeedada ama sababta ugu weyn ee nagu kaliftay Haasi Consulting gaar ahaan aniga oo bilaabay waxay ahayd waxaan u shaqeynayay muddo dheer hay'adaha caalamiga. marka aqoon iyo khibrad aad u fiican baan ka helay, gaar ahaan tii ugu dambeysay oo sida ganacsiga u shaqeynaysay baa waxaan ka helay khibrad
iyo aqoon badan oo xagga ganacsiga ah. marka waxaan jeclaystay aqoonta iyo khibraddaas inaan la wadaagno dadkeennii, waayo waxaan la shaqayn jirnay ganacsiga iyo laamaha dowladda ayaan inta badan iyo injooyadaba. waxaan ogaanay oo intii aan hawsha ku jiray daraasadaan ku sameeyey mashaakilaadka ganacsigeenna iyo laamaheena dowladda iyo institutionskeena ragaadiyay inay tahay inaynaan aqoonta casriga ah aynaan u isticmaalin shaqada. dabadeetana fikir waxay ugu dhashay ah inaan la talin iyo tababar dadka u baahan yihiin. dabadeetana sidaasaan markaa uga fikiray. barnaamij dheer buu ahaa, waqti dheer bay igu qaadatay, in badan baan ka fikiray. ujeedaduna waxay ahayd runtii waxaan arkay ganacsiyadii magaca lahaa ee hebel iyo hebel iyo hebel maanta qof ka nool ma jiro. ganacsigii yani uma gudbaya jiilkii labaad. ganacsigeenu waxay ka dhigan tahay wuxuu la bilaabmayaa qofka mulkiilaha ah, wuxuu la xanuunsadaa qofka markaasuu la baaba'aya. active yahayna waa active, markuu xanuunsado waa xanuunsanaya, markuu dhintana waa dhimanaya. waad arkaysaa intii magac lahayd Hargeysa oo keliya ee ganacsiga magac ku lahayd maanta ganacsigoodu wuu yar yahay. ganacsi jiilkii labaad u gudbay, iska daa mid jiilkii saddexaad u gudbayo. waxaad helaysaa mid ama wax maaragtay iska sii dugdug leh. marka si ganacsigu uu qaab istiraatiijiga, qorshe leh, nidaam leh, system leh, mustaqbalka foga mustaqbal fog leh, dadka jooga ay yihiin dad fakeraya, inay yihiin dad maaragtay aqoon leh, karti leh, in maaragtay la dhiso oo la diyaariyo. ujeedada ugu weyn aan u sameynay taas ahayd. runtiina alxamdulilah rabbil caalamiin ilaa hadda 5 sano oon hawshaa wadnay guulo badan baanu ka gaadhnay. shirkado badan iyo institutions fara badan oo aan la shaqaynay baa guulo la taaban karo sameeyey, walilahi alxamd. waxaanu rajaynaynaa inaanu in badan oo wadda inta maaragtay ay Soomaalidu degto, hadday tahay Somaliland, hadday tahay Soomaaliya, hadday tahay Ethiopia, Kenya, Djibouti, in fariinteedu gaadho. cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay. guud ahaan waxaad ugu talagasheen xaruntu inay noqoto xarun la shaqeysa dadka Soomaalida ee guud ahaan geeska Afrika degan. waxaan ognahay dadkan isbedelka ama si guud dadka isbedelka ma soo dhaweeyaan. sidee bay idin ku suurta gashaa inay ganacsiyada marka ay u tagtaan ay u aqbalaan oo ay u qaataan barnaamijka haas ay qabato? waa arrinta runtii uga adag inaad qof ganacsanayay oo shaqaysanayay oo u haystay inuu guuleystay inaad ku tiraahdo intaad u tagto waxbaan kula hagaajinaya. waana runtii mashaakilaadka ay dadka soo gala consultingka markaba ka hor yimaada. arrinta runtii waxaan ku xalinay waa adagtay horta waa wax maalin walba culays noo taagan wey. waxaan idhaahdaa the power of listening, awoodda dhageysiga. qofkan ganacsi uu sameeyey, wuu guuleystay, caqabaduu soo maray, guuluu gaadhay. waxaad u baahan tahay inaad dhegeysato. marka waan dhegeysanaa, warkan ka gurnaa, hadba meesha la marayo ayaan wixii kaga habboon annaguna aan u sheegnaa. dabeetana qofku ila waa qof caqli leh, markuu arko wax ka caawin lahaa waxuu isagu la rafaaday oo xoray wallahi ka waan u baahanahay. dabeetana haddana mid yar oo kale, haddana mid kale, marka dambe waad isla qabsanaysaan. inta badan marka waxyaabaha runtii aan aad xoog u saarno markaan isku cusubnay dadka waxaa ka mid ah tababarada shaqaalaha. tababarada waxaanu had iyo goor xoogga saarnaa customer care-ka, in la fahmo waxyaabaha keenaya saameynta degdega ah. tusaale ahaan dadku say macmiilka ula dhaqmi lahaayeen, siday shaqada u wanaajin lahaayeen, daacadnimada maaragtay iyo professionalism, inuu qofku shaqadii ku wanaagsanaado. waxyaabaha qofka shaqaalaha markiiba isbedel ku keenaya, korinaya. dhinaca kale waxaanu had iyo goor ku dadaalaa waxyaabaha saameyn dhaqaale keenaya. tusaale ahaan saleski ama iibku inuu kordho ayaanu habab iyo maaragtay aanu kusoo kordhina. deymaha ka maqan oo kale siday usoo urursan lahaayeen ayaanu farsamooyin usoo kordhina. alaabada ay kasoo iibsanayaan dibadaha iyo suppliers sidii ay deal fiican u heli lahaayeen, transportationka iyo kharashaadka ka baxaya siday u yarayn lahaayeen, siyaabaha suuqgeynta u sameyn lahaayeen, suuqgeynta siday u sameyn lahaayeen, suuqa markiiba u geli lahaayeen. marka waxyaabo caynkaas oo markiiba ay dadku immediately arkayaan
si dhaqso u dareemi karaan 3 sano kadib ama 2 sano kadib baad arki doontaa natiijada way adkaanaysaa marka waxyaabo ay arkayaan iyo waxaan isugu lifaaqnaa in wax mustaqbalka hodheer oo waxa degdeg ahi waxaanu ka ilaalinaa inaanu saameyn xun ku yeelanin mustaqbalka dheer ee shirkadu ay leedahay marka waxaan la isu balance gareeyo ama la isu miisaamo in ahdaafta dhow ee imika ay tahay in la gaaro iyo jiritaanka shirkadda iyo mustaqbalka iyo koriinka marka waxaan ka shaqeynaa inay shirkaduhu koraan oo ugu yaraan 3 sano markay joogaan ay laba laabmaan 3 laabmaan ugu yaraan 2 sano markay joogaan hadday si fiican u qaataan inay laba laab hadday tahay iibkooda hadday tahay dakhligooda hadday tahay shaqaalahooda hadday tahay kobaca maaragtay expansionka iyo fididooda iyo faracyadooda inay fidaan oo ay noqdaan maaragtay shirkad weyn ayaan aad ugu dadaalnaa marka way adag tahay runtii isbedelku waa waxa ugu xun dadkan meesha jooga ayaan raalli ka ahayn kuwa leh ayaan raalli ka ahayn laakiin waxay u baahan tahay waa sida kiniinka maaragtay kiniin macaani uu yar yahay soo waa qaraar isbedelkuna waa qaraar marka waxaad u baahan tahay qofkii inaad ku sasabto oo tiraahdo biyo badan ku liq hore isu dhaafi markaad liqdo ayaa xanuunkii kaa kala degaya maaragta oo relief helaysa marka waa arrinta ugu adag ee qof kasta oo consulting service-ka soo gala aan ogahay ama dhegeysanaya waa baynka haysta waa mushkiladda hortaagan maalin kasta uu la tacaalayo sida hadda waa noo sheegtay barnaamijka waxaa loogu talagalay ganacsatada iyo weliba shakhsiyaadka doonaya naftooda dhisan waxaa jira hay-ado iyagoo tababar bixiya oo weliba iyagu dadka lacag ku siiya muxuu yahay farqiga u dhexeeya tababarada hay-adahaasi bixiyaan iyo tababarka hay-adahaasi bixiso waa su-aal runtii aada u qurux badan waxaan ka shaqeyn jiray waxa la odhan jiray social marketing waxaan ku macnaynay suuqgeynta bulshada oo danta waxay ka dhigan tahay yani annagoo ka shaqeynayna caawimadii ayaanu haddana wax iibin jirnay ujeedada ugu weyne laga lahaana waxay ahayd dadku inaanay u fahmin in la caawinayo ee dukaanka ama farmasiga ay alaabtooda ka iibsadaan in la jabiyey oo qiimo aada u jaban laga siiyey iyo in qiimo qaaliya laga siiyey iyaga macluum sameynayso jeebkiisu kala baxay isagaa iibsaday isagaa leh lixjaala ka haysa waxyaabaha hay-aduhu qabanayaan way fiican yihiin laakiin qofka la siinayo iyo ka bixinaya labadaba waxa weeyaan yani lixjaala kama hayso marka had iyo goor waxyaabaha bilaashka kugu soo gala way jaban yihiin had iyo goor yani qiimo badan ma yeeshin qofka bina waa waxa yani psychologically la ogaaday qofku wuxuu iibsado iyo waxa bilaash lagu siiyo had iyo goor waxa uga qiimo badan wuxuu iibsado marka annaga waxa noo imanaya ama aan u tagaynaa qofkii lacag buu jeebkiisa ka bixinaya soo ciyaar maaha isagay baahidu haysaa maaha beerliyam lama siinayo waxaan runtii tababarkan leadershipka ayaa lacag fara badan ayaanu dadka qaadnaa $300 qofkiiba dad badan ay soo garaaco waxay yidhahdaan ma annagana la siinayaa waayo waxay u barteen hay-aduhu inay lacag bixiyaan markaa waxaan ku idhahdaa may adaa lagaa qaadaya ma aragta waayo qofku markuu isagu intuu la baxo uu lacagtii bixiyo iyo marka ay cidi ka bixiso aad bay u kala duwan su-aalaan ku siinaya waxaa jira hay-ado badan oo la shaqeeya ganacsatada soo marar fara badan bay ganacsiga caawiyaan annaguna waan la shaqeynaa soo marka haddii shirkaddu intay noo timaado lacagta iyadoo ay iska bixinayso iyo haddii ay hay-ad ka bixinayso farqiga u dhexeeya waa cirka iyo dhulka lacagta markay iyagu iska bixinayaan way ku dagaalamayaan saameyn bay ka fikirayaan way xisaabtamayaan hay-addu markay ka bixinaysa laakiin waxaa la yidhahdaa wax jira waxaa la yidhahdaa tick the box yacni waan sameeyey ma aragta marka waan sameeyey macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa qofkii mashruuca hay-adda joogayna mashruucay ku jirtaa markaa isagu inay fushuunba u dana qofkii la siinayeyna waa qasabo waxa laga yaabaa in grand iyo lacag la siiyeyoo inuu maraa hawshani ay waajib ku tahay dabadeetana isna waa inuu maray ma aragta marka had iyo goor kuwan inta badan la bixiyo hay-aduu bixiya hana beerliyam iyo waxbaaba la siiyaa dadka lacag baa la siiya marka dadku marar fara badan waxay yidhahdaan
lacagta inay u yimaadaan baa ka badan inay aqoonta ay u yimaadaan. In badan baan aba training bixiyey hay'ad bixinayso, marka waan dareemi karaa faraq aad u weyn oo cirka iyo dhulka ayaa u dhexeeya oo ah inuu midna saameyn leeyahay midna aanu saameyn badan lahayn. oo haddii tababarada hay'aduhu bixinayaan ay saameyn leeyihiin waddankani buu isbedeli lahaa, natiijadooda waa la arki lahaa. exactly. su-aasha ku xigtaan ku weydiinaya waxay tahay fikradan horta lacag ma laga samayn karaa? lacag ma laga samayn karaa? ha waa laga samayn karaa, laakiin in lacag laga sameeyaa waa hawl yar maaha. xigmad baad iibinaysaa, fakir baad iibinaysaa, maaragta qof aan ku garanahayn oo aan qiyaasi karin aqoonta iyo waayo aragnimada iyo xirfadda aad leedahay ayaad intaad u tagto aad ku leedahay waxbaan kaa iibinaya. waxaan kaa iibinayaana waa fakir, waxaan kaa iibinayaa waa aqoon, waxaan kaa iibinayaa skill, waxaan kaa iibinayaa farsamooyin iyo tools aad shaqadaada ku wanaajisanayso ama aad naftaada ku wanaajinayso. kuma garanaya qofka. markaa horta in yacni aad levelkaa ilaa halkaa qofka ku qancisaa waa shaqo adag. haddaad laakiin halkaa gaadho waa shaqo aada u fiican, oo haddaad xagga ilaahayna niyooto wanaag, islaax iyo dad la hagaajinayo iyo shirkado la hagaajinayo iyo ammaanooyin la saxayo ayay ku tacalluqdaa. aakhirana ajir baad ka helaysaa, adduunkana lacag baad ka helaysaa. laakiin mid baan mar walba ka digaa, ma aha sida dukaamada wax qof waliba furan karo, ma aha waxaad in adeerkaa u dhiiban karto oo cid ku hayn karto waa wax uu ka bixi karo qof mawduuca marba laga hadlaya, aqoon iyo waayo aragnimo iyo khibrad dheeraada uu u leeyahay, markaasuunbuu consultant noqon karaa. waxaa kaloo dheer hibadii ilaahay uu dadka siiyey ama qofku uu isku tababaray ahayd afka, inuu qofku qof wax sheegi kara, wax taxliilin kara, wax furfuri kara, wax baari kara, dadkan innovation iyo maaragtay curin leh iyo halabuur oo dadkan uu u yimi wax kusoo kordhin kara. markaad waxaa la timaado ee dadkii aad wax kusoo kordhiso iyaguna lacagta way kugu horayaan. weliba waxaan ogahay ganacsatadu ciyaar lacagta kuma bixiso. hadday laakiin u arkaan inay dantooda tahay waa deeqsiiyeen, laakiin inaad gaadhsiiso heer ay u arkaan inay dantooda tahay waa hawl adag u baahan oo aan ahayn sirta xaggaasay ku jirtaa. sirtuna halkaasay ku jirta. way dhawaan waxaad u bilowdeen tababar ku saabsan horumarinta xirfadaha hogaamineed. muxuu yahay ujeedka tababarkaasi? yaad isagu tala gasheen? waa su-aal fiican. tababarka waxaa la yidhahdaa tababarka kobcinta xirfadaha hogaamineed iyo samaynta qorshaha nolosha. waxaan ugu talagalnay daraasad runtii aanu samaynay kadib waxaan ogaanay hadday tahay qof, hadday tahay qoys, hadday tahay institution ama ganacsi ama laan dowladeed, hadday tahay qaran, inaan la wadi karin hoggaan la-aan. adigu keligaa axmed ahaan haddaanad naftaada hogaamin karin meel ma gaaraysid. qoyskaaga haddaanad hoggaan ahayn qoyskaagu noqon maayo qoys kareyda. institutionka aad ka shaqeysa haddaanad hogaamiye ahayn wax fiican kusoo kordhin maysid. markaa bulshadeennan soomaalida marka la isku qaado waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid ahaa inay inagu yar tahay xirfadaha hogaaminta. dabeedna waxaan ka fikirnay bal dadka ugu badan in la tababari karo, lagu qalabayn karo xirfadaha hogaamineed si markaaba loo helo dad maamuli kara institutionskii ganacsiga, muxuu ahaaye dowladda, hay'adihii maxalliga ahaa, familiyadii, iskuuladii and so on. marka waxaan ugu talagalnay qof kasta oo Soomaaliya oo han leh oo raba inuu wax bedelo oo nolosha tiisa kow, familigiisa, magaaladiisa, institutionka uu ka shaqeynayo ama uu leeyahay, qarankiisa, geeska inta uu ku nool yahay kale ee ummadda muslimiinta, adduunka, caalamkaagu hadba waa intaad adigu ku qeexato. marka imika ana waxaanu yani taargetka koowaad ka dhiganay inta afka Soomaaliga ku hadasha, Somaliland degan, Soomaaliya degan, Djibouti degan, Ethiopia degan, Kenya degan, inay noqdaan
oo ay ka soo baxaan dad hogaamiyeyaala oo lagu daydo oo ummadda afka soomaaliga ku hadasha ka dhigta dad sharaf leh oo ummadaha kale la tartamaya ee geeska kula nooli ay ku daydaan, hadday ganacsi tahay, hadday dhaqan tahay, hadday cilmi tahay, hadday siyaasad tahay, hadday awood tahay, dhinac walba oo nolosha ka mid ah. marka barnaamijkaasi runtii waa barnaamij aada u qiimo badan. dad ilaa 100 gaariga ka baxay hadda imika January 14 ilaa 16 oo bishaan ku guda jirno sanadka cusub 2020 14 kii lixaad ayaa Hargeysa lagu qabanaya. ilaahay idamkiina Muqdisho iyo Garowe iyo Jigjiga 2020 way ka hirgelayaan. waa si wanaagsan. muxuu yahay hiigsiga xaruntan tababarka haasi? actually hiigsigaygu aad buu weyn yahay. hiigsigayagu kuma eka geeska Afrika waxaan ku wuli waa hadafkayga koowaad. laakiin dadka Soomaalida ahi meelo badan bay ku daadsan yihiin, adduunyada oo dhan bay ku daadsan yihiin, ganacsina way ku leeyihiin. hadda imika waxaan wada hadlaynay maalmahan dad ganacsataa oo Mozambique ka ganacsanaya oo doonaya in loo qabto shaqo consulting service ama shaqo la talineed. marka dadka Soomaalida ah Mareykan bay joogaan, ganacsi bay ku leeyihiin, waxay u baahan yihiin ummadda ay dhex joogaan inay ka murbaxaan oo ay noqdaan tusaale wanaagsan oo ummaddu ay ku dayato oo iyaga lagu dayo. waxay joogaan imka Turkiga waad ogtahay, Imaaraadka iyo Carabta waad ogtahay, Sacuudiga waad ogtahay, Kenya waad ogtahay say u qabsadeen, Ethiopia, macni wadamo fara badan bay Soomaalidu ganacsigooda waliba aad u fiday. exactly. marka waa xagii ganacsiga. waxa kale oo ujeedadayadu ay tahay oo aan rabnaa dawladaha dadka Soomaalida ah u dhisan inay u fakaraan sida dadka dawladaha horumaray ay madaxdooda u fikirto oo dadkooda nolol sameeyaan, adeegyada u sameeyaan, muxuu ahaayay hogaamin ku dhisan cilmi iyo caqli oo ah mid horumarinaysa dadka. waxaad ogtahay haddaan tusaale soo qaato Singapore, ninbaa ilaahay u soo saaray muddo 20 sano ku siman gudaheed ayuu ka soo dhaqaajiyay dunida saddexaad la dunida koobaad. ujeedaduna wax kale ma aha khayraad ay leeyihiin iyo lacag iyo nimco iyo alaaf fadhida maaha. quwadii iyo awoodii dadka iyo aqoontii iyo kasmadii dadka iyo kartidii baa laga faa'iideeyay. cid ku horgashana way heleen hogaamiyaha. cidda aan anagu raadinayna waa cidaas. marka haddii dadka u taliya dawladaha dadka afka Soomaaliga ku hadla ay noqdaan dad sidaa u fikiraya, waxa kaloo dhan waa hagaagaya. waayo hogaanka ugu sareeya ayaa had iyo goor waxay Soomaalidu tiraa awrka hadambe awrka hor socodkiisu leeyahay. haddii hogaanka xukuumiga ah uu xumaado waxa xumaanaya dhammaan wixii ka hooseeya. marka waxaan jecelahay inaanu kobcino oo aan saay waxa kale oo maaragtay iyaguna target noo ah ururada maxalliga oo runtii iyaguna meel weyn oo bulshada wax weyn tarta. hadday tahay kuwa maaragtay tabarucaad ka shaqeeya, waxbarashada ka shaqeeya, caafimaadka ka shaqeeya ee iyaguna maxalliga. waxaa jira initiatives ama urino ay dadka localka ama dadka bulshooyinku ay samaysteen oo magaalooyinku samaysteen oo mararka qaarkood reeruhu samaysteen oo shaqeeya oo dadka wax tara. soo kuwaas oo kale laftoodu waxay u baahan yihiin in la taakuleeyo maaragtay la bari takaaro. marka runtii hamiga nagu jira waa mid islaaxa wanaagsan oo aan ugu talagalnay intii Ilaahay naga gaarsiiyo annaga iyo cidda kale ee maaragtay hawsha soo gashaaba in dadku ay wax wanaajiyaan. Cabdiraxmaan aad baad mahadsantahay. barnaamijku gabagabo ku dhow yahay. su'aasha ugu dambaysa barnaamijku waxay tahay maadaama khibradaada iyo aragnimadaada ay la tacaluqdo la talinta iyo kobcinta xirfadaha maxaad kula talinaysaa ganacsiyada laamaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga? waxaan kula talinayaa kow inay samaystaan
qorshayaal istiraatiijiyadeed 3 sano 4 sano 5 sano 10 sano oo ay had iyo goor maanta intay dhaafaan ay ka fikiraan mustaqbal. 2 systemska iyo nidaamada iyo hanaanada shaqada wanaajinaya, hadday tahay kuwa shaqaale lagu maamulayo, hadday tahay kuwa xisaabaad iyo maaliyadda lagu maamulayo, hadday tahay kuwa maaragtay isu socodka iyo alaabta iyo wax soo iibka iyo wax sii iibinta ay tahay, in systemska iyo nidaamada in la xoojiyo. 3 dadka in la dhiso, aqoonta la kobciyo, kasmada iyo kartida dadka iyo hibooyinka ku jira in la soo saaro. hantida ugu weyn ee la haystaana waa dadka. hantida ugu weyn waa waxa maal wada yeelan kartaa, laakiin haddaana Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii qofka Ilaahay xoolo la damo dadkeedu siiyo. annaguna waxaan dhahnaa qofka Ilaahay lacag iyo dee maal la damo shaqaale wanaagsan buu siiyo. markaan leeyahay strategic thinking ama fakarka istiraatiijiyadeed, waxaa jirtay mahmaha Soomaaliyeed oo oran jirtay qof maalin ma gaadhin, nin bay oran jireen, laakiin maadaama rag iyo dumarba ganacsiga lagu jiro, waxaan u bedelay qof maalin ma gaadhin, qofna sanad ma gaadhin, qofna markaa nin bay ahayd markaa weligaaba ma gaadhin, sanad ma gaadhin, ninna weligaaba ma gaadhin. markaana waxaan nidhi qof maalin ma gaadhid oo qofka kaa maqal wanaagsan, kaa kaash badan, maalin ma gaadhid oo maantuu diranayaa wixii u baahna, maantuu samaynayaa wixii uu doonayay. qofna sanad ma gaadhid oo qofka kaa shaqaale wanaagsan, sanad ma gaadhid. qofna weligaaba ma gaadhid oo qofka kaa istiraatiijiyad wanaagsan, kaa qorshe wanaagsan weligaa ma gaadhid. waayo wuxuu ka fikirayaa 3 sano 4 sano oo soo socda, adna maanta la rafaadaysaa shaqadii aad qabanaysay. waxaan kula talinayaa in ay xalaal miirtaan oo Ilaahay ay ka baqaan, hadday shaqaalahooda tahay, hadday shareholderska iyo dadka wax walana tahay, hadday tahay macaamiisha, hadday tahay bulshada. in dadku oo dad islaam baynu nahay, valueskii islaamka ama qiyamkii islaamka iyo waxyaabihii la aaminsanaa ee mucaamalaadka xagga iibka iyo mucaamalaadka maaliga ama maaragtay sida loola dhaqmayo maaliyadda, in aad la isaga ilaaliyo wixii la oran jiray xaaraantii xalaasha iyo shubahaadka. marka had iyo goor qofku inuu isweydiiyo shaqadan qabanayso, waxaad u samaynaysaa ma yahay wax Ilaahay raali ka yahay. aad bay muhiim u tahay. waxaa runtii sharaf weyn noo ah haddaan nahay Haasi Consulting sectorkan dhan ee la talinta, oo runtii markaan soo galnay aan ahayn meel laga shaqaysto, in maanta uu yahay meel laga shaqaysto oo dad fara badan ay shaqooyinkii uga yimaadeen, meherado badan oo consultina ama la talina la furay, uu yahay sector dhan oo maanta jira, hadday tahay Somaliland iyo hadday tahay Soomaaliya oo ganacsiga kusoo biiray. waxaanan doonaynaa runtii inaan quwadda isu geyno oo aan ka dhigno mid ka xoog badan sida aanu maanta nahay ama siday maanta tahay mid walba kasta oo yariba. maaragtay markaa annaga laftayada ayaa dee u baahan la tali soo ma inaanu sidan usii weynaan lahayn laidinkala shaqeeyo, inaanaga laftayadu aan iskala shaqeyno, annagana lagala shaqeeyo. marka runtii waxaan aad maaragtay carabka ugu cejinaya dadka Soomaalida ahi inay u fakeraan ganacsigoodu inuu dhaafo noloshooda. waana sababta aan anagu Haasi ahaan u jirno. adiga maanta haddaad ganacsi abuurto, maalinta Ilaahay maalin walba dhimanaysaa, inaanu maalintaa ganacsigaagu dhimanin, ee qaabkii uu ganacsigaagani kaaga dambayn lahaa maantood nolosha aad kasii fikirto. Cabdiraxmaan, aad baad mahadsantahay. barnaamijka waxaan soo gaadhnay guntii gabagabadii xalqadii koowaad, halkaas caawa noogu egtay. aad baad u mahadsantahay saaxiibayaal. Cabdiraxmaan, aad baan kaaga mahad celinaya. aad baan kaaga mahad celinaya.